السلام عليكم. سوري هذا ملك استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. سوري هذا ملك سوري هذا سو عرورة فيديو كان لايف ويه waxaan ku magacaabay dharbaaxintii ku dhacday farmaajo iyo guul daro dawladda federaalka ah iyo xuquuqda dastuurka iyo humanitarian saddexda mawduuc baan ka hadlayaa. soo dhawaada. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل والبركاتين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم سميع مجيد. waxaan bilaabayaa oo ka hadlayaa dharbaaxin baa ku dhacday kow farmaajo madaxweynaha iyo waxaa kaloo dhacay una cosa wax lagu tilmaami karo disgraziata dhacday. waxaa dhacday mid difficile of Soomaali ninkii garanaya macnaheeyo una disgrazia governala dhacday. waxaa dhacday disgrazia crazy oo maamulka dawladda ah governa iyo waxaa dhacday waxaan afka soo mari karin oo lagu magacaabi karin catastrophe maxkamadda. waxaanu gelaynaa oon hore uga hadlay oo aan anigu si saxa uga hadlay oon uga hadlay in farmaajo talada laga dhubin. kow dhibaatadan dharbaaxinta waxa farmaajo u geystaan nii sheegaya waxay ahaayeen raggii farmaajo doortay xildhibaano dadban ciyaal beed ah. nin walba lacag buu bixiyey, qof baa soo magacaabay uu ku yimid farmaajo. xildhibaanadii dadbanaa waxay keeneen madaxweyne dadban. madaxweynihii dadbanaa ee la doortay ee Fahad Yaasiin lacag qatar iyo lagu doortay iyo ducaale oo ganacsade ah iyo team diaspora samaysmay waxay keentay in farmaajo lugaha laga xiro. marka un presidente madaxweyne yimid soo kordhay ee team la imaan weeyaan. madaxweynaha wuxuu la yimid team dadka ugu xun, dadka ugu daciifsan, hadday hawiye yihiin, hadday digri marif leeyihiin. madaxweynaha wuxuu ku yimid hadal shacabka u baahanaa oo isbeddel laga hadlay oo ugu horreeya waxaan sameynayaa uu yiri dib u heshiisiinna wuxuu dhiibay raggii moryaanta ah ee dadka dilay. taasina wuu ka dhacay oo dib looma soo qaaday. farmaajo wuxuu la yimid tiin yar yar taabit Fahad Yaasiin wasiirka amniga ducaale iyo tijaara taabit Fahad Yaasiin iyo rag kaloo badan oo adiga isay fantocia una squadra moto team moto waxay gaartay maantu in heerka la maro. ra'iisul wasaare khayre asna waa teamkii heerka in maanta la gaarsiiyo. waxa gaarsiiyay ra'iisul wasaare khayre. waxaan shaashooyinka ka aragnaa nolol iyo nabad. shaashadu waxaan ka aragnaa nolol iyo nabad labadaba dawladda Soomaaliyeed ma keenin. shacabka muqdisho kaliya ku koobantahay. shacabka muqdisho nololna way haystaan, nabadna way haystaan. shacabka isma dilaan. qaraxyadaa dhacaya dawladda looga soo horjeeda. shacabka muqdisho banaadir wuxuu noqday shacab mudulood ah. raggii banaadiriga ahaa waa iska dulansan yihiin, waa iska dhex fadhiyaan, shaqo kuma laha. laakiin khayre habeen iyo maalin ka hadlaya nabad iyo nolol uu khayre sheegay waxna ka jirin. daaroodkoo idil baa shacaar ka dhigtay. maxaa dhacay? waxay rabaan nin mareexaan inuu taliyo soo noqdo. capable maaha ninkan mareexaanka. wax xun baa loo sheegay. inamadaa yaryar way dhumiyeen. waxaa berigii siyaad baray awood lahaa hawiye gabayruu tiir ka saaray, madaxa ka toogtay efinitoli. ninkani waxay ka dhaadhiciyeen tiimkan ciyaal beedka ordaya inuu cabdishakuur ceer weeyaan inuu madax ka toogto la tuso shookadiiyo habargidib iyo hawiyeba lagu jibiyo meesha. way surooweed. okay anigu waan u hadlay cabdishakuur, waan ku dhaartay inuu soo baxayo. wax walbaan ku dhaartay. in ay habargidir awood tahay waan ku dhaartay. in mudulood awood yahay waan ku dhaartay. in hiraab awood yahay waan ku dhaartay because waxaan ahay nin consopable politician.
marka meeshan uma baahno cilmi nafsi xariga cabdishakuur waa la isku wada raacsan yahay hawiyo dhan hadduu abgaal yahay hadduu horgidir yahay hadduu wax walba yahay kulli waa la isku raacsan yahay in la isku raacsan yahay nii sheegaya laba kelmadood baan halka ka dhawaajinaya ni anfici karto kelmadda ugu horeyso wasiirka amniga wuxuu yidhi shir lama qaban karo iyadoon fasax la meel la fadhiisan karo ma lahu yidhi wuxuu tusayay shacabka inaysan dowlad jirin oo la fadhiisanayn waxaa dhacday in cabdishakuur maxkamad been la keena la yidhi damaanad ku buxuu shookadii maxkamaddana wuu jibiyey wuxuu yidhi ma baxayo meel aan u socdo male dad baa iga dhintay hal xukumo haddaan dembi galo okay taana shookadii maxkamadda ku jabtay xeer ilaaliya nixunka ka soo saaranaya waa usoo naqlina waxaa dhacday in xeef gogol fadhiyey in ciidamada xoogga ee rangerska dhulka ku jiiday ee etoobiyaan la dagaalamay ummadda hayaan quatro jarlentaana inay kasoo galeen shabeellaha hoose muqdisho la iskugu yimid tarbuunka la qabsaday sebiyan la qabsaday trebiyan la qabsaday meel walba la qabsaday waxaa kaloo dhacday oo runnii sheegaya been ha u qaadin farmaajona inuu cararay sidii bisidda uu gaashaandhiga galay ciidamada dhex galay waa bisid waxaa waaye bisidii guriga joogtay haddii ay ammaan weyso way ordaysaa waxay u gelaysaa guriga waardiyaha gaalada leeyahay eyaa joog eygay gadaashiisa gashaa farmaajo wuxuu galay ey gadaashiiu galay taasina waa mid gaashaandhiga waxaa ku jiro 70 jeneraali gabowe wax kama celin karin waa eeyo meesha qamarku cadow u galay ey buu ku dhex dhuntay marka waxaan waxay ahayd wax lisla ogaay mudulood uu midka yahay ee dowladdan baryahan iswaalaysa cunugan yaree mursade ee gagagagagag leh ayaa loo tashtay in runta loo sheego cabdishakuur baa la xiray wixii dhacay waa aragna dad baa garabka laga gacanta ka dhaawacan yahay 6 qofoodaa ku dhimatay wax walbaa dhacday waa la qaaday nabad sugidda la xalay ninka ugu horreeya soo geliyaan haa ka horna videoan duubaan ku dhaartay inuu cabdishakuur soo baxay haddii kale farmaajiyi khayra u dhimanaya maxaa dhacay cabdishakuur waa la soo dayey waxaa fadhiistay mudulood iyo hiraab hartina ku jiro dirna ku jiro meesha way ka muuqdeen ayaa fadhiistay wasiirkii amniga yidhi shir lama qaban karay awoodda dowladda sheeganay khudbadiisa ku laabtaan ilaahay cunugaa xun waa tujaar ku laabta wasiirka khudbadiisa ku laabta maxaa dhacay waxaa guulaystay mudulood kowdhe wasiirkana waa mudulood ka bixi habar gidir keliya ma guulaysan muduleed oo dhanaa guulaysan waxaa guulaystoo kale fahad yaasiin waxaa guul u soo hoyatay taabit waxaa guul u soo hoyatay wasiirka amniga maxaa dhacay wasiirka amniga waa taajir he's a billionaire shirkadda airbortkuu sheer ku leeyahay terminaalka zawori wuxuu leeyahay jaziiro hotelo wuxuu leeyahay night clubyo ku yaalla airbortka dhexdiisa he is the most biggest business waa ninka soo dejiya khamriga gaalada UN-ka iyo ay cabayaan tijaarad aad iyo aad u weyn wuxuu seedilayahay eno asne khamri iyo wax walba United Nationska mucaawanada meel walba geeya UN-ka raashin u geeya katrin u suubiyo ducaala wuu guulaystay dantii maaha haddii la dagaalamo tijaaradii way burburi lahayd habar gidir dhulkay ku dar lahayd fahad yaasiin wuu guulaystay haddii dagaal dhici lahaa villa Soomaaliya madaxtooyada ma haysatay taabid wuu guulaystay haddii ay habar gidir dagaalami lahayd taabid meesha ma fadhiyeen marka maxaa dhacay waxaa guulaysatay dantii hawiye waxay ka guulaysatay dowladdan beenbeenta la dhoobaye betrol iyo wax lagu xaday iyo kan wadalkayga si fiican uma mudulood baa shiray wasiirka amniga wuxuu ku hadlay unuka sida cali mahdi annaga ma dhihin unuka markuu ku leeyahay waa abgaali hawiye unuka haddaan qaldanay wiilashiinaa nahay ku dhaqla hadalku ku hadlay unuka haddaan qaldanay wiilashiinaa nahay hana la saamaxo waa caasiyo garoonay raali hana laga noqdo hana laga saamaxo dowladda lagama hadlayo waxaa laga hadlooyaa 4.5 qabiil waxaa laga hadlooyaa muqdisho waxaa leh hawiye waxaa leh mudulood wuxuu yidhi unuka aniga haddaan imaamkii abgaala haddaan qaldamay halayga raali noqdo madaxa lee salaaxo waa ka soo hoyday taa waxaa helay guul u soo hoyatay mudulood
in aysan dowladda wax ka qaadi karin iyaga muqdisholeed guusha uu soo hayey ducaale waa guul mudulooda waa la cafiyey waa inankooda taasi waxaa lagu dharbaaxay dowladda farmaajo bac dharbaaxinaa lagu jiray magacaa musaabaha wasaarisiyaad bara hoosa ku jira haddaa noo soo bixin sidii shaati mareexaana noo gashanay gabeere sidii loo dili wax ma dili karti adaa ku dhimanay okay waxaa guulaystay fahad yaasiin waxaa guulaystay taabit waxaa guulaystay kheyre mudulood kama hoos bixi karaa tartiib lacagtiina u cunaa layidhi tartiib amarkana ka qaata odayaasha taasi waxaan kaga baxay tii mudulood ee lagu raaligeliyey ani waa lagu raacsanaa hadduu dastuur jiro warning loo keeni lahaa ninkaa la xiri lahaa ay jiitami laheyd maxkamad la geen lahaa damaano kusoo bixi lahaa maalin walba maxkamad lagu wareeriyo ee 2 sano 3 sano socotaata ani waa ogolaan lahaa dowlad baa jirtaan dhihi lahaa okay ninkan maxkamadii laad buu ku dhuftay maxaa dhacay waxay ka soo gashay waddo khaldan haraanta ku dhuftay wanaga tan weeye waxaa tii meel aan baxayo male iisoo caddeeya maanta maxkamadda waxay ku hadashay ma aragteen bal dhegeysta videoga maxkamadda ku hadashay ku noqdo raadsada dadka iska caytamay maxkamadda maanta waxay tiri xeerka 16aad xeerka 18aad xeerka 24aad xeerkan ayaa lagu xadgudbay ninkan dambi ma laho mana la soo xiri karo xoriyadiisa loo celiyo okay xeerka 16aad xeerka 18aad xeerka 20aad yaa ku xadgudbay xeer ilaaliya ku xadgudbay damay maxkamadda xukunta tiraada xeer ilaaliya waa la soo xadaa tata un jooko waaye una min extra la tusayo daarooda faraxsan min daarooda taliyo dhan marka daarood si u dhan yahay la hadlaya hawiye waa ka soo hadlay xooggoodii wax daarood si u dhan yahay Soomaaliya wax nigama banaano Soomaali uma talinaysiin don't dream maxaa dhacay doo farmadaayo Soomaaliya dowlad xumada way baxay dowlad kale xun imaanays dowlad kale xun imaanays wallahi billahi tallahi waxaan leeyahay Soomaaliya hagaay karta una koliyo عبد الشكور مدحوين ناخذ أما حيفو مدحوين ناخذ مال بالله كرب حيل نكي رجع رير كاو صهر حنية له لكن فرماجو نيوم وام فرماجو فرابوتو فرماجو بين لو مدحوين ناخذ كرب خيرنا يا ونا بوتانا الشرح يسوي ميك اب مرسل يسوي نبت ورميلاه كين مركو نبت ينول هاي لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير نبدو إيضا تشرين بينه ولا غير مقدشو إيضا نبت تشرين كحن تل أي غير مقدشو نرى الوحي يستميد وطن كحن رينجر السود مدافع له قراعي صلبلاريو أنا عيدي الدقالمين أنا ما هذه عيدي الدقالمين هبرك ذي بحدير الدقالمتي محكمة هذا الدقالمين أي ريتوبيا الدقالمين we have نرى نبت يو كرامة نلال iyo karaama ciyaarkan fataalinta ciyaar beedka ma keeni kara baatu budulood guul buu gaaray Cabdi Shakuur waa inuu u soo jeestaa in la suubiyo gobolka Banaadir waa inuu xaq reer xamarka soo celiyaa waa inay habar gidir maanta xisaab u samaysataa reer Baraawe reer Marka reer Shalambood Shabeellaha Hoose habar gidir nafsi kaliya baa haysto Shabeellaha Hoose wax ka qabta saad maanta dawladdu lugaha ugu joojiseen waxa niga codsanayaan anigana gartiina u qaado anigana neer hiiliyay oo niigu hiiliyo dulmi diiday dulmi lagu hayo maanta waxaan doonayaa in Cabdi Shakuur iyo mudulood oo dhan iyo xeef ugu horeeyo inaad fariisatiin inaad maanta aqli Banaadir soo celisiin in dhicisiin inaad maanta reer Banaadir iyo reer Xamarka reer Shabeellaha Hoose reer Baraawe wax walba jareer iyo kulli dawladdu wax kama sugayna adinka maanta xoogi ah adinku waxaan naga baryeynaa si walaaltinimo quraanku u naqda idaa ikhtalafta waxa la yiri quraanku u naqda reer Banaadir iyo hawiyana ma khalafsano isku dad baana isku maciishana inay abtigi baana waxa la hadlayaa dadka maanta xooga muujiyay ee dulmiga diiday ee gardarada diiday hal wuxuu qaqaan naga baryeeyaa u soo jeesta inay marka xornimo hesho inaad biimaan la fariisatiin inaad Baraawe xoreysiin inaad koonfur galbeedna ka xoreysiin Baraawe oo dadka ay yihiin dad walaalihiina mar hadda muduloodtiin mudulood waxa weeye xamar iyo xamardaye xamar cabdi xamardaye waxaan nigu waaninayaa maanta adinku weeyaan xoog maskax iyo geesinimo kula dagaalamay dad xuno saqa jaamina waxa la hadlayaa hiraab waxa la hadlayaa ir Soomaali dulmiga iska ilaaliyo dulmi baa diideen oo nigula safar dulmiga iska ilaaliyo Shabeellaha Hoose odayaashooda u yeera fariisiya Baraawe sidoo kale
meel walbo maanta guushii xorriyaddii soomaaliya soo celisay doonfaar ma daahiro mar haddaad daarood iska dhiciseen shirqoolkiisa iyo dulumkiisa iyo siduu kaartada u dhigay wax walba u dhigay waxaanu dalbanaynaa ku dadaala in madaxweyne hawiye la helo prime minister reer waqooyi la helo saas weeyaan soomaaliya waa labo waa waqooyi iyo south waxaan kala hadlayaa cabdishakuur cumar cabdirashiid qof walba ha lagu dadaalo madaxweyne isaaq ah ama madaxweyne hawiye ah ama madaxweyne hawiye ah prime minister isaaq ah erer soomaaliya dhulka qabsada daarood waa dad aan wada dhalanay iyagana waxaan odhanayaa daacadnimo la imaada waxaad leedihiin maamul goboleed puntland waxaad leedihiin jubbaland tan aad bensiinka iyo lighterka hoos uga daaraysiin oo aad leedihiin hawiye aqli malehe ku cayaarad shantaraan 4 tilmeed banaanka kasoo qaadateen yariiso iyo kan mursaday iyo kuwa kale ee hadda ciyaal biidka ee betroolka wax ka qorayo xaamuda betroolka soomaaliya wax ka qoraya aniga waa qoslaa markii la dhaho xaamud wasiir dowlaha khayra ra-iisul wasaare khayra jamaad jeesto marka intaasaan uga bixiyaa waad guulaysateen maanta waxaa guulaystay fahad yaasiin waxaa guulaystay ducaale waxaa guulaystay taabit waxaa guulaystay muduloodoo dhan dhaqaalihiin iyo wixiina wuu badbaaday aqli baa isticmaasheen guusha weynna waxaa soo hoyiyey cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan ku leeyahay adigane maantu hamigiinu waa inuu noqdaa inaad madaxda soomaaliya naqatiin inaad dadkan iska celisiin waxa yaryar la shaandheeya soomaali waadaan aad naga qabatiin dadkan cugdada ku jiro dib heshiisiin la galaa la fariistaa dadka dulansanna la hagaajiya hastala victoria sempre kakhayash farmaajona waxaan leeyahay farabuto dharbaaxintan kalima 115 dharbaaxina kugu dhacis diyaar u ah mac salaama